waagii hore waxa lagu heesaa macnay lahaan jireen adab macno leh ninka taagan haddaad u fiirsato wuxuu ku hadlayo gurigaygii baan ka soo baxay waddadaan soo maray gabadhidaan jiidhay intaasuu ku hadlaya markaasaa wax la tumaya waxa uu sheegayaa erayada uu ku hadlaya waa nooca waa intaasuu sheegaya dabeetana ummadoo dhan baa soo baxayso dadkoo dhan baa daawanaya waxaynu isweydiinaynaa musaabaqaad baa tviyada ka soo baxa musaabaqaadka ma garanaysaa waxay yihiin tartansiin rida u qurux badan dunida lagu tartamaya markaasaa muxalliliini soo fadhiisanaysaa daymada soomaad arkaynin ridatan iyo say u qurux badnayd bilyanuu ku helayaa riba qurux badan eyga dunida u qurux badan leh rida dunida u eegmada fiican leh aduu qiyaas bini aadam ka shaqaynaya oo lacag lagu bixinayo oo inta la isugu yimaado ri iyo dibi iyo sac iyo ey iyo wax la mida laga warramayo waxay yidhaahdaan waxaa soo kordhay waxay ku tilmaamaan celebrate worships dadka caanka ah oo la caabudo qof baa baxaya shaadh iyo surwaal iyo koofiyad magac ku qoran yahay mujarad inuu magacaasi ku qoran yahay buu ka qiimo badan yahay dharka kale oo dhan